Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada channelkeena Somali News oo wax waliba kusoo bandhigno. Maanta waxaynu kusoo bandhigaynaa qisas oo ah qiimaha dunida ay leedahay. Haddii aad ku cusubtay channelkeena subscribe sar. Qisadu waxay u dhacday seetan. Qoom aad iyo aad u adduunyo jeclaay ayaa waxa ay maqleen geed magaalada banaankiisa ku yaalay ayaa waxa uu dhalay dahab mise diamond. Geedkii ayay u soo wada ordeen ayagoo isleh qof waliba yaan lagaaga hormarin ee waxaad noqotaa qofka koobaad. Bas subaxii markii uu bari waaga ayaa loo soo kala orday. Weliba hore waxay u soo qaateen qoolal iyo yad iyo baangado iyo gudin si ay isaga celiyaan qof waliba oo doonay inuu uga hormaro. Qoomkii waxaa ku dhacday way islaayeen, say isu laaynaayeen, baangadii ay isu garaacayeen. Waxaa soo hartay 3 qof. 3dii qof waxay ku heshiiyeen in midba mid uu fuulo geedkaas uu koro, haddii uu soo dhacana aanan loo gurmanin, qofkii ku guuleystana uu qaato. 3dii nin waxay dhaheen sidaas ayaan sameynaynaa si aan isku aamino in aadan lugta aadan isoo qabanin, aan qofka fuula ha laga fogaado si uusan oga shakin in lugta intii la soo qabto dhulka lagu soo tuura. Aad iyo aad ayay oga fogaadeen. Ninkii kooda fuulay. Ninkii kolkuu fuulay geedka markuu kala bargaaray ayuu soo dhacay, waxa uuna ka jabay qoorta. Labadii nin waxay arkeen ninkii soo dhacay, way ku soo kala ordeen. Waxa ay arkeen asoo qoorta ka jabay, dhinac ayay u jiideen. Qofkii labaad ayaa yiri haye kor mise aan koro. Kii labaad haddana fuulay. Kii labaad geedka markii uu u dhow yahay laanta uu saaran yahay diamond mise dahabka, asagana uu soo dhacay. Waxa uu ka jabay dhabarka. Markii uu ka jabay dhabarka oo soo dhacay, kii dhinay ayaa arkay oo yiri ama intuu ku soo orduyay haye haddii aad ka jabtay dhabarka, gees ayaan ku riixayaa, aniga ayaa geedkan fuulayo, sidaasna ooga soo goosanayo. Geedkii ayuu damcay inuu fuulo. Waxa uu ku fikiray labadan qof way soo dhaceen. Haddii aad adiguna fuusho waad soo dhacaysaa. Marka waa inaad xal kala keento. Xalkan labadan qof ayuu ku socon waayay. Marka xal ku soconayo waa inaad keentaa. Okay waayo. Waxay sameeyeen si toos ah geedkii u damcay inuu xal kale u raadiyo. Geedkii fuulay. Markuu cabaar socdo ka cabsooday inuu soo dhaco, uu isaga soo laabtay. Baangadii uu haystay ayuu yiri geedka ku jar. Geedka kolkii aad ku jarto oo geedka uu noqdo 2 cad oo isla eg, sidaas laanta ha ku soo dhacdo ama geedka ha ku soo dhaco, sidaas adigana diamond mise dahabkii si fudud ku hel. Sidaas ayuu sameeyay. Geedkii uu qoday ama uu garaacay. Geedkii soo dhacay. Ninkii ayuu qoorta geedka uga fadhiistay. Ninkii halkaas ayuu ku dhintay. Geedkaas waxa uu ahaay duni. Marka dunida xitaa haddii aad dhan walba ka soo marto oo aad xal waliba aad soo raadiso, marka dambe ayada ayaa ka adkaanaysa. Sida sheekooyinka ka hadlaya dunida aynu u joogtayno, waxaynu kugu dhiirinaynaa inaad page-ka subscribe noqoto.